فاميليا ومهتسنتين my sister ساميو وحفلتان قروحda badan bilawgeeda ilaa dhan ya tartiibkay waa goynaa yani tartiib gurigeyga dalad hadda baldaawada sidaad muuqaalada hordhacba ka soo aragtay waa King CK oo ka dhuumanaya booliska Mareykanka maadaama CK uu wadanka Mareykanka ku soo galay sharci la'aan uuna hadda sharci bahaysanin dadka guryaha lagu haayana uu ka mid yahay CK oo meeshan xaflad ku qabsaday oo asigoo sharci la'aan ah dad badan oo taageerayaal u ahna iskugu wacay showna uu dalkaasi Mareykanka ku qabsaday showgaasi oo dad asiga mucaarad ku ah oo xaasidkiisa ay CK badan yihiin ay booliska u waceen ayna sheegeen qof sharci la'aan ah in uu dalka Mareykanka joogo uuna meeshaan show ku qabsanayo si aan kula wadaago xogahaasi xoga sir ah fadlan nagu soo biiro channelka subscribe noo dhig baleelka fur muuqaalkan like talla wixii fikrad ka qabdina qaybta commentiga noo wadaag sida dhabaanba CK oo afkiisa ka shaaciyay mar horena uu sheegay asigoo dalkaasi Australia joogo CK oo bartiisa YouTube-ka muuqaal uu soo dhigay uuna ku cadeeyay mar dhow in uu Australia ka safri doono oona sidaasaytine bas ka socdo oo u socdo Mareykanka in uu saaran yahay uuna ka hari doonin markuu Mareykanka tagana uu soo hadli doono CK oo afkiisa markuu ka cadeeyay dadka qaarna isdhaayeen CK arinta ayay kaftan ka eed CK oo arinta ka dhabeeyay markii uu safray oo dadka tahriibay uu ka mid noqday oo dhulalkaasi Mexico dhex maray CK oo rafaad dheer ah kadib muuqaal uu soo duubay sida aad ka arki kartid daawade ay isla joogaan Hodan Abdiraxmaan CK oo markaasi Mareykanka soo galay ayna ku soo dhaweynayso Hodan Abdiraxmaan iyo fanaaniin caan ah oo ka mid ah Farxiyo Kabayare iyo dad badan ay ku soo dhaweynayaan oo hadda laakiin muuqaalka u jeedin lagu soo dhaweynayo Hodan Abdiraxmaan ay ku soo dhaweynayso ku soo dhawo ee CK ee leedahay Mareykankana adiga oo kaliya ayaa ka dhinid CK oo markuu Mareykanka imaaday oo farxadda ay ka tambadatay maadaama uu asiga bahamiyeystay in uu dad asxaab oo taageerayaashiisa ka mid ah uuna ogaaday boqolkiiba dadka badan in ay taageerayaashiisan dad qaarna ay Mareykanka joogaan in uu show ku qabsado showgaasaytina asxaabtiisa ay u kala kiciyaan showgaasayta oo la sameeyay CK oo meesha imaaday in uu showga uu gala uu rabo uuna ku faraxsan yahay laakiin CK uusan ogeyn in oo dabin loo mareey oo loo maleegay oo la rabay in booliska madaxa loo geliyo CK-na warbixintiisa la sii gudbiyay in uusan dalkaasi Mareykanka sharci ku haysanin uuna dadka qaxootiga ku ahan oo kamid ah CK oo barta TikTok-giisa live ka saarnaa ayaa muuqaalka laba wiil oo la ag taagan ayaa waxay arkaysaa gaariga booliska oo xafladda meesha ay ku qaban rabaan imaanayo CK oo xafladda aanan galin oo banaanka live uu ka dhex hadlayo gabdhaha showga diyaariya iyo dadka showgaaniti isku xirxiray oo ugu mahad celinayo dadka Soomaaliyeed oo idinla uu ku leeyahay hadda ayaa showga bilaabra heesa dabna waa qaadaya iyo waxaas asigoo dheh oo wiilashii la taagna ay leeyihiin war CK arintu way isbedeshay gadaashaada fiiri boolisaaba meeshii loo wacay meeshin way isbedeshay sida adiga aafileysay CK uu leeyahay aniga meesha sharci kuma haystay ay waa ka dhoomanaya muuqaaladaas iyo muuqaalo sir ayaan kula wadaagi doonaa wixii fikir aad qabtin qaybta commentiga noo wadaag soo dhawow daawad فاميليا ومهتسنتين my sister ساميو وحفلتان قروحda badan bilawgeeda ilaa dhan ya tartiibkay waa goynaa yani tartiib gurigeyga dalad